waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii dhaqankii la jeclo dastuurkii iyo shuruucdii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo maalmo xaaraan ah oo xukunka ku sii waaro taasina ma suurtagelayso waxaa noo muuqatay in muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurkii iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyinka tii aan doono baan soo hormarinayaa tii aan doonana dib baan u dhigayaa anigoon eegin dastuur jideeyey ama xeer jideeyey waxa uu leeyahay axsaabta qaranka waan baabiinayaa muddada jiritaankooda sharciga ahna ee 10 sano ahna waan soo yaraynayaa waxay noqonayaan ururo taas oo aan sharcina ahayn suurtagalna ahayn awoodna aanu lahayn waxa uu leeyahay waxaan soo hormarinayaa doorashada ururada iyo axsaabta aan xeerkoodii wali la samayn annana waxaan leenahay oo aanu ku celcelinaynaa ma jirto doorasho ka horeyn karta ta madaxtooyada ee 13 November 2022 muuse wuxuu leeyahay waa kororsanaya annaguna waxaan leenahay xaq uma lihid inaad kororsato waa inaad doorashadii qabata haddii ay doorashadu 13 November qabsoomi weydana kuma aqoonsanin madaxweyne waxaad aragtaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa dakhiliga iyo wasiirada kaleba iyagoo ku celcelinaya doorashada ta soo horeynaysa waqtiyada doorashada iyagoo kala sheegaya waxay og tahay in muuse iyo wasiiradiisii inqilaabeen komishankii shaqadii komishankana iyagu hayaan ma isu eeg yihiin ayaamuhu gaariga wuxuu yidhi haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waayo arag ilayn wax ma dhaantid geed sanadadii qaraadhaa ee kulmiye iyo maanta ma isu eeg yihiin waxa nasiib darro ah in jidkii qodxaha badnaa ee muuse soo maray maantana uu taagan yahay walaalayaal waxay soo dhaaftay xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee muuse Soomaaliland ku riday waxa laga maarmaan ah in nabadda iyo wada jirka iyo wada lahaanshaha la difaaco waxa laga maarmaan ah in la difaaco dawladnimada inaga dhaxaysa ee aynu wada lahayn muuse ka hor muuse kadibna aynu wada yeelan doono waxay nagu waajibaa inaan Soomaaliland ka difaacno kaligii taliye damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka waxay nagu waajibaa inaan ka hortagno doonista guracan uu muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo walaalayaal ummadaha marka ay samaysto diktatoriyadu ama bilowga diktatoriyada ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda hadal almaani dhawid dhalinyarada anoo la hadlayaan ku yidhi dhalinyarada uguma maaqin inay hub soo qaataan ana hub ma sito madaxda xisbiguna hub ma sito dhalinyaradana uguma maaqin inay hub soo qaataan laakiin waxaan ugu baaqnay in marka waxay xaq u leeyihiin ay fulinayaan ee dastuurku siiyay in haddii ciidanku
si xaq darro ah ama sharci darro ah uu rasaas ugu furo ay isu dhigaan maantana waxaan leeyahay isu dhiga dhammaan shacbiga Soomaaliya waana nagu qori ma sidano ka soo riyadaynu eegi doonaa kaasina dambi buu la kulmi doonaa ku rida qof aan rasaas sidan oo hub sidan maalin baa la xukumi doonaa oo la qisaasi doonaa waxa dambi geystay walaalayaal baaqaan u jeedinayo taageerayaasha iyo cidda jecel nabadda iyo sharciyadda iyo doorashooyinka iyo nabadgelyada Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta joogaan annagoo u marayna dariiqa sharciga ah si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo Muuse iyo xukuumaddiisa dariiqii doorashooyinka ee uu ka leexday loona qabto doorashadii madaxtooyada 13 November waxaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland intooda nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inay muujiyaan dareenkooda annagoo u mari doona dariiqa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyay muwaadiniinta si Muuse iyo xukuumaddiisa sharciga loogu soo dabaalo au diyaar garoobaan shacbiga iyo doorasho madaxweynaha oo ka dhacaysa ma jirto lacagta iska khasaarina maxamed kahan waxa la yiri laba sano korsanaya laba qofna oo ku soo saaray oo ordi adan ku sharaxaya aan laba sano ka bacdi ma shaqeyn kare maxamed oo idna ku sharaxi mayso dalku habka ku heshiiseen hab ku soconaya ma waxaan doonaa yeeliya waana shaar koronaya oo seen doonno keenay Soomaaliland qiyad weena shirbeeled baanu taginaa ti aan booramato